صاحبتنا قيمها بدنا كحنا برتين في يوتيوب عبد الله الدقسيس ولا فيسبوك بيج كان حودون ميدا waxaan maanta idin haynaa arinta Sharmabay iyo Aisha Aziz maxaa ka dhaxeeya jacaylka Aisha Aziz iyo Sharmabay halkuu samaraya maxaad ka ognahay maanta saaxiibkayga qiimaha badan waxaan idin faalayn doonaa mawduuceena maanta balse marka hore waxaan ka codsanayaa in aanad muuqaalka guda gelin inaad videoga leegno sarto noo share garay saaxiibada kale ku xidhan Facebook sida YouTube iyo Facebook Instagram iyo TikTok oo dhamaantood inoo qoran yahay Cabdalla Daqsi saaxiibkay qiimaha badan بوقو انستغرام كينا سيزو كلنا بوقو تيك توك جينا عبد الله دقسي اغنا فلودا دكسي سيزو كلنا فيديو كلا غري ولا شير غرا اصحابتك كلا فيسبوك aad ugu mahadsantahay daawashadaada iyo la jaanqaadka ka qurux badan ugu xirantay saaxiib hadda maanta waxaan ka hadlaynaa Aisha Aziz iyo fanaanka caanka ah ee aadka u caan baxay Sharmabay maxaa ka dhaxeeya maxayse tahay arinta la hadal haya ee jacaylkooda cusub waqtigan hayay dooliga maxay tahay arintani maxaase ka jira صاحب waxaa ka jira arintan anigu ma ogaye bal iga faaloyo naga dhac bal hay ana niga dhacay arintani waxa ay tahay mid xaqiiqo ah oo banaanka si weyn u timid kadib markii la arkay iyagoo leefka si qurux badan ugu wada sheekaysanaya soo kale Aisha Aziz ayaa leefka dhexdiisa si weyn ugu ilmeysay iyadoo jacayl dartiid la ilmeysay taas ayaa si weyn dadku ay u faaleynayaan gaar ahaan bartan gaarka ah YouTube tan oo hay jacaylka lamaanayaasha sidoo kale looga hadlo aniguna waxaan kamid ahay dadka lamaanayaasha ka hadlay xogii ugu dambeeyay dhamaantooda saaxiibayaad page-keenu wuxuu u diiwaan gashay ambointi soo badan u funayahay inuu ka hadlo xogii ugu dambeeyay saaxiibaysi asxaabtina loo wadaago iyo sidoo kale lamaanayaasha ugu dambeeyay ee waqtigan sharafta badan leh sida uu ugu soo beeraya ها ee ka baxaya hoolka iskaabalnimada ee gaboobay oo raacaya doonta cusub ee guurka taasi oo hadhow tole u jahaynaysa inuu mustaqbal yeesho insha Allah iyo inuu ubad qurux badan qof ku dhalo labadaba waana yoolka kaliya ee loo socdo intaad joogto dunida waayo dunida markaad joogto waxa socota inaad reer yeelato oo xaas yeelato iyo inaad bari iska iyo sankarta iyo saliida wax ka kafeeya aad hesho mooyaane ma lehan adduunyada rooysa maal kale balse aakhira ayaa sahadeeda loogu baahan yahay si weyn taasina waa sunnihii rasuulka iyo guurku kamid yahay oo waa mid isagana loo baahan yahay oo si weyn in Aisha looga hayo muhiimada koobaad tahay balse Sharmabay oo marka hore isugu ka tagay doontii iskaabalnimada iyo Aisha Aziz oo iyadu saarnay doonta iskaabalnimada ayaa imika la sheegaya inuu ka dulqaadi doono doonta iskaabalnimada isaga oo xaaskiisii iyo boqoradiisii Deemanka haydna hay u ogolaatay inuu guursado Aisha Aziz wow halkan waa xogta ugu dambeysay xogta ugu dambeysay si kastoo yahaataba ma ay sheegin waqtiga arooskooda dhacayaalka oo ka dhacayo iyo xilliga ay noqon doonto balse waa jacayl si weyn banaanka u yimid taasi oo xaqiiqdeeda saaxiibadina qiimaha badan oo idin wadaagayno haddaba Sharmabay oo fanaan caan ah iyo gabadhan oo soo kala jirta social media sida TikTok ha u badnaatay Aisha Aziz haddii iskuulsada waxay noqonaysaa janno ku sugaya jiifkii iyo wixii la oran jiray oo adduunyada la isku helay noqonaysaa waayo labada qof waa fanaaniin markaad dhinaceeyo isugu waa fanaan caan ah iyadna waa qof baraha bulshada si weyn ugu jirta King CK ayaa la sheegay inuu maalmihii la soo dhaafay u gambiyay gabadhan balse waxay heshay Sharmabay saaxiib daragtana la wadaag comment-kana noogu reeb aad baad ugu mahadsantahay